بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا لهي ميل كستا جوجتين أصحابتا كحيران جانال كيغا لبنى بيوتي جانال كوي هوري كوي دنبه دمانتي وحا إذن ليهي سو دواذا وولاشين لبنى إيه مركاليتو إيه ألابتي بيوتي ما شاء الله رقعداغي سو رقال علي ميدي جيران سوماليدا marka axbaabi waa kana alaabteeni naturalka ahayd oo beautyga ahayd maanta bilaabanay waxaan suubsanaynaa kareem cajiib ah oo inaba caadi ahayn wajiga u fiican qurux ka dhigayo haaraha ka bi'inayo finanka ka bi'inayo madmadowga ka bi'inayo wajiga buuc kaaga dhigayo baby face baby skin ku yeelay inaba caadi ahayn alaabtaas oo ka kooban baradhada waxay u fiican tahay wajiga haaraha bi'isa finanka bi'isa madmadowga finanka bi'isa gaduudka bi'isa wajiga way ku cayilinaysaa intii aayida la gaarin iska shaqeey wajigaagana qurux ka dhig marka meeshaan waxaa noogu jira caano baradho iyo caano iyo waxaan haysanaa kaniiniga capsule-ka ah oo fitamiinka ah wajiga u fiican dheehdiisa soo celinayo haruud meeshaasna liin dhanaan intaas isku darsaneynaa axbaabi liin dhanaanta hadda xasaasiye ku tahay ama allergy waa iska dhaafi kartaa waxaa ku bedelan kartaa rose water marka axbaabi alaabtan baradhada biyaan kusoo karsaday si fiican aan usoo karshay oo kale ilaab ah marka diyaar ay tahay waxaan suubinayaa waa fiiqaneynaa waa jarjaraneynaa mishiinta ku ridaneynaa waan shiidaneynaa hadduu alla idmo marka axbaabi baradhada wajiga quruxay ka dhigaysaa finanka ka bixinay horta whitening ay leedahay baradhada haddii aadan ogeyn maanta ogow baradhada whitening ay leedahay brightening ku siinee quruxay ka dhigay xabada adduunka jabiiba ku noqonaysaa qofkii mishiin haysanin bahashaas uu ku jabsan karaa laakiin mishiinta waxay ka dhigaysaa si cajiib ah kareem kaaga dhigay axbaabi marka aniga bahashaas ma rabo howl fudud hadii la dhahaana mishiinta fudud waxayna ka dhigaysaa si soft ah oo kareemka aan u baahnaa ii noqonayso marka hadda waa soo jarjartay waxaan suubiyay baradhadeeni hadda waa soo jarjartay maqaarkan ka fiiqday waa jarjaray dan meeshaas ku soo rutay waa u jeedin saas oo soo jarta way bisishahay aad u bisishahay waxaan suubinayaa mishiintan ku shubanayaa mishiinta markaan ku shubto caanaha ku darsanayaa waa soo shiidanayaa markii aan soo shiito kareemka aan suubsanayna soo ku soo bixi doona caadi ma ahan asxaabteeda ani waa ka helay kolay taba adinkana soo tijaabiya waan soo shiiday asxaabteeda hadeertaan khalaadadii aan ku shubtay saa u jeedeen waa soo shiiday markaan soo shiiday sidaan ku soo baxay hadda waxyaabihii kala dhan ku darin caanihii iyo waxaan isku soo shiiday baradhadii bas saas u jeediin oo noqday oo inaba caadiga ahayn hadeertaana waxyaabaheeni kale aan rabno ku dardarsanaynaa hadda waxaa ku dareynaa liin dhanaanta ku darsanaynaa asxaabteeda qaaliga ah liin dhanaanta iyadana wajiga clean ka dhigaysaa quruxay kaaga dhigaysaa marka asxaabta oo dadka naturalka ah rabaan inay isku cadeeyaan alaabtaana waxaan leeyahay isku cadeeya xataa gabdhaha kaleeto oo daawada marsadaan ma dhibeyso waa isticmaali kartaa waa qurux inay ku kordhiso ma ahan wax ma ku dhibeyso liin dhanaanta hadeertaan ku darsada axbaabi liin dhanaanti waan ku darsada halka xabo liin dhanaan waxaan ku darayaa qaado haruud ah qaadadana zaaid ma u buuxinin qaado haruud ahaan ku darsaday waxaan ku darsanayaa hadda kaniiniga fitamiinka ah waa kareem inaba caadi ahayn qofka soo tijaabiyay la ka sheekeyn karo ma ogiye qof kasta ma ka sheekeyn karo alaabtan soo tijaabiyay axbaabi intaa iida la dagaarin qurux iska dhig gacanta isku hay jikada ha isku iloobin adigoo jikadaada iyo gurigaaga iyo ilmahaaga ku dhex jiro wixii jikadaada ka helaysid isku qurxi
iida adigoo qurux badan oo dhalaalayo iid insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo. marka hadda kii fitamiinka midaan ku darsaday, midkii labaad hadda ku daray, mid saddexaadaan ku darayaa bas bikafi. saddexdaas xabo way nagu filan tahay. marka waa alaab maasha allah ah, kaniiniga fitamiinka ah, kaabsalka u eg wajiga yacni dheehiisu soo celinaya, wajiga aad u qurux kaaga dhigaya, wajiga yacni difaaca jirka oo wajiga ahna wuu ka saacideynaya. kareemkan cajiib maahan asxaabteeda, maxaa laga qaban karaa kareemkan? waxba lagama qaban karo, ka sheekeeya. waxaan ku shubanayaa hadeertaan aniga caag kareem iiga dhamaado oo ii yaalay. alaabahan camal markaan subsado aan ku shubanayaa. markii aan ku shubto kadib waxaan suubinayaa meelaan dhiganaa, fridgekaan gashanayaa. maalin walba marka aan marsan rabo dhowr daqiiqo ka hor banaanka soo dhiganayaa. kaal iska arag qoorta iyo wajiga, gacmaha saas ugu tirtiraa. kaal arag wajiga buuc qurux badan oo kaaga dhigayaa maasha allah. mar walba waxaa idin dhahaa quruxi waa gacan ku hayn, gacanta halisku hayo hadduu alla idmo. marka asxaabteeda waa kaasaa caagana hanta ku shubtay. caaga markaan ku shubtay baaquligana wax yaraan ku reebanayaa. waxa yarka aan ku reebto waxaan rabaa wajiga iyo qoorta hadda inaan marsado waqtil xaadirkan. marka kareemkan adiga ilaa 1 saac ilaa 30 daqiiqo wajigaaga ku haynay. 30 daqiiqo wixii ka badan dhib malaha, laakiin wixii ka yar yacni si fiican kula shaqeynayo. tijaabiya 7 beri toos wada ama 15 beri waad arki doontaan. 15 beri ama 7 beri markaa wadid adaab iska dhaafi doonin. marka alaabta halahaasaan reebtay, halahaasna haddaa marsan rabaa baaquliga ku hartay. maasha allah tabaarakallah. waa walaashiin Umu Lubna oo idin leh, haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelka furo.